الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ماضي سبحانه وتعالى إلهينا بقبضك وكلام من هذا ده waxa sugaysan waxa weeye in aan safarkayga ka waraman filay insha Allah taala marka hore waxaan aad iyo aad u hambalyeeynaa gudida isqaabaqaabisay isxilqaantay isku jirta reer Soomaaliland oo dhan culumadii iyo business community baa mashruucii horta ku guuleystay ama garanayay inay labadii soo daayaan labada xidhnaa ee reer wadani iyo ninkii ila meerayso أنا ما كسبي يقول يسوي ما أعرف مكتب ما مقال مقع هو ما حد نقينا هو قول في عن ما دام ما أنت أنا قلت تشرين قلت إنك القميص أنا تشرين أما دام ما أنت بارلمان تشرين institutions كنا قد إنتين إن حقوق لحصة ما يسمه أو كو قلت له إن تعب كيني تعب غير ما الشعب غير أنا خسارين وأنت هالديننا أنا waxaan u tagay safarka laba arrimood baan u tagay mid waxay ahayd inaan beesha caalamka oo inaga soo niyad jabisay inaan idhaaho faraha naga qaadina weli rajaan leenahay waa inta aan la kordhin muddaxalaadka ayuu balantaasi ay noo ahayd iyo dad kale oo iyaguna reer Soomaaliya ويوم ماشي كوب على سنين أيامه عم تجي ولا رئيس عماني كتير سن بس يبغى وحن كلكم ما يبغى ما كاتشوف قلت أن ألفتها وحن كل ما يقولون ما تشرتين وصلادينا أحمد مدوي كل مرة وحن كتها سنون سي سومالي لو بتبادل لها يسومالي عندنا سلوك هرتج لها قرشها وضع سفير كمرايكنكا فرماجو رئيس وزراء إثيوبيا إلى الدنيا إن سومالي ضبع جيس كتشوكتا إن إثيوبيا اللي قضوا زي بدي هنا القبصتان وفكرة دي ملك قرن جيس على تومناد أي مارسها فرماجو سيدي أديركي محمد سعد بريغن كويلي Soomaaliyan ku keenay waxa doonta ka yeelo caawi isagoo leeyahay dekedahay ku siiyay ya waxa doonta ka sameeyo caawi inta laga hortago Soomaaliya badbaadiyo ayaa ma ka tashanay alxamdulillah rabbil caalamiin isku fikir noqonay khasaara weyna Soomaaliland hadana Soomaaliya ku dhacaysa dekedaha dhulka isku haya maanta strategic waxa weeye inaga ugu badan waxaybteena 850 kama لكن شايفته مقعابي إن هديركي بلد إنك بلد يا وائل مهدير فرماجو هي بدي إنك تطلين هي حوله هنا وقت شبوت كدوفية قاستي كصبح الأوجادين أيها لنا نعرف شبوت لقين هي تضرب قلو كيلومتر أيها لنا الوضعية وأفر بقول مترين كيلومتر يدقنوا بالكينية أيها لا شبوت المرية وحصل لو حكى لنا يا بيلا هذا يستيز لعنته قرن لعنته أن كنا والله يبوي مركا وحنا أرنت Soomaaliland maanta waxay maraysaa arin aad iyo aad meel xun bay maraysaa waxaan jaanisayna wadayaashaas daleeyahay ka warsuginaa arimayn hortaagan waxa weeye commissionka doorashada la kordhiyay waqtigeeda technical loo kordhin iyo dawladda hoose bisha December wixii ka dambeeya haddaan dawladda hoose meeyar la wada isloogay la sameeyeen waxaan ka soo taaranaa inaan cashuur la bixin wax cashuur loo bixiyo ma jirto wax cashuur loo bixiyo ma jirto waa yarayqsi adduunkan si ay aragteen maxaa lagu qabtaa cashuurta islaamta laga qaado biskiinada subax kasta la dul taagan yahay biyo ma haysato nal ma haysato wada ma haysato har ma haysato lacagtaas xaga qabata saddexda arrimood baan inaan ka soo taliya ana wala kulmiyaa insha Allah ta'ala waxaan ugu waranayaa halkan ina marinayo adduunkan socda dynamics socdo inagu leena wax xisaabiyo halkan Soomaaliland taaganay waleet aan xitaa mar carabka dadka inaga gadhin dawaan baylahan inaga isku jeedno marka waxa weeye insha Allah ta'ala way ku guuleysan doona insha Allah ta'ala Soomaaliland dagaal saddexaad oo si hore uma baahna 92 buu dhacay
94 aakhis buu dhacay maanta Soomaaliland dadkii ma aha dadkii sida hawsheeda isku diri jiray ma aha waxaan leenahay cod midaysan ee Soomaaliland dadka reer Soomaaliland danahooda ka tashanayaan mustaqbalka ka tashanayaan macaariya maxaafada kii qaldana ka wada hor imanaya oo midaysan ayaan insha Allah taala midooba ya macaariya maxaafada qofka aragtay in dantiina wadin danta reertu danta guud bay ku jirtaa dan qaran ay ku jirtaa yani isku keen dareen reer baa hubsita reer baa xabada wata waxa lagu sheekay oo maqlay maskaxdi qaaxo ayaan leeyahay keen hadii la ilaa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته maalinta shalay ahayd beesha caalamka saxaafiyada soo saartay mowqifka doorashooyinkii dibdhaca inta ay soo sheegeen gudoomiye Saleymaana 2 sanadood uu ku dhisay sidee arkaas kooda مثلا Soomaaliland isaa korsaday laakiin reer Soomaaliland teeda wata gacanta lagu hayo isaa korsaday waa bala sharci u fadhiya sharci la'aan ku fadhiya baasha sharci la'aan ku fadhiya midkoodna xaq ma ay fadhiyaan January hadii maanta ka dhamaatan hadii ka bixi waayeen waxaan ka inaa sidii magaalada saay Ciraaq iyo Lebanon ka dhacday wadooyinka istaagin maxay lacagtii loo qaataan inoo qabtaan maxay u qaataan cashuurtii dhiig ma waa wixii idinka aruutiin mustaqbalkiina midkoodna ma aha sharci midkoodna sharci ma saddexda golob sharci ma saddexda waan isdhaafina insha Allah taala wasdhaafina waxa jirta in ilaa maalmadii shalay tolaahayd waxa baraha bulshada dhex wareegay sawirro muujinaya kulamaad la qaadatay mas'uuliyiin xilal ka soo qabtay dawladda Soomaaliya harta ku qaalimka ayaa xildhibaan maxaad ka wada hadasheen Soomaaliya soo badbaadinaya Soomaaliya wala badbaadinaya يا سلام عليكم. لبنان دمية قرأوا كده سؤال الشتى هذا وقت. هذا مقبول وإحنا كويتين عندنا قبل سنة شهرين. معلوم. سد أروح. أنا يعني باش واسنقانا. واسنقانا. واسنقانا باش يعني ده ملايو يتميو. لكن waxaan leeyahay waqtigiina uu dhacay ka baxa meesha gudoomiye waxaad sheegtay su'aal war ah ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya iyo dad la socda inay doonayaan qadaan badaha waa siyaasadda Mareykanka bal arintaas xogta xagad ka heshay dawladda akhriya buugta meesha wala gaad hadan ku soo diray ku dambeeyay la akhriyo xumayno akhrinaaba marka xogtaas maxay sheegaysaa waxa qolaysa in la doonayo yawmaatnika ambassadorka inuu wado in Soomaaliya Eritrea isku daro oo ka dhigo federation system taasna ay keen doontaa in dawladaha yar ay la qado soo Ethiopia si ay badaha u qabsato afar dekedood bixiyay afar soo bixin kara farmaajo deked geedu ka dhasho deked qora ma leh wadakadeen wax la bixinaya isagoo leedahay in raac ku isku haysataan iyo todoba commission laba sano waqti la naga qaado waa wake up waan dadkan mustaqbalkeena xumayn mayna in mustaqbal yaalitaan doona waxa maanta ka socda caruurteedna iloomaysa caruurtooda hadaan mustaqbalkooda ka shaqeyn mustaqbalka caruurtan ka shaqeyn dilaaya gudoomiye safar kadib safar kadib maalinta baxday iyo maalinta baxday shir jaraayad baad maalmaha baxsay qabatay xukuumadda aad u dhalishay maanta oo soo noqotayna hal midoobaad tiro Soomaali baan la soo shiray adigu ka gudoomiye ahaan intii aad bixin gudidii commissionka hore aad casuuntay xubintaadii commissionka ayaa xubnahan mucaaradku la leeyahay diidan yihiin ee xisbigaaga iyo xisbi kale diidan yihiin ku jirta dadku waxay isleeyihiin Faysal Cali Waraabe ma mucaaradkana dhan buu lugta kula jira maxaafadkana iyo xukuumadana dhan su'aashii dalbada waxa weeye in badan baa gudoomiye mucaaradka imkan odayaad oo Soomaalida dhexdeeda ka caana sanadada soo socda Ilaahay ba ku nooleey ma kula tahay inta siyaasadda halkaas ka dhigteen doorkii odaynimo Cabdi Waraabe oo kala gashay waxba saddex dhigtay moogta waxaan ka jooga garan maayo laakiin mid ma ku sheegay aanu maalintii qof bixiyay maxamed dhaliina wixii jiraan ka sheekay halka wadda ku marayaan ka sheekay waxa anaga madaxweyne Muuse soo marnaan ka sheekay waxaan dhaliilay damay jirin tan waxa weeyaan siyaasadda waxaan u garan ku inaan caruurta qaran u sameeyo caruurteedan company u sameeyo shirkado u sameeyo xaaskayga kala saar waay siyaasadda family siyaasadda kala saar waay ama maalgelin amba aan oday ahaan ku sameeyo amba aan siyaasi waan inta noolahayna wax danta caruurtaadan